madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo mudnaan siinaya xaqiijinta higsiga Soomaali heshiis ah ayaa gudoomiyay kulankii afraad ee shirka golaha wada tashiga qaranka oo qabsooma tan iyo doorashadii madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda kaasi oo maanta si rasmi ah uga furmay qasriga madaxtooyada madaxda heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee shirkan ka qayb galaya ayaa muddada uu socdo ku lafaguri doona arrimo mudnaan u leh dawladnimada gaar ahaanna xoreynta dalka iyo ciribtirka qawaarijta asteynta awoodaha heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo federaaleynta garsoorka shirkan oo uu ka qayb galayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale diiradda loogu saari doonaa arrimaha dardargelinta dagaalka dalka looga ciribtirayo qawaarijta al-shabaab kulankan ayaa ah kii afraad oo yeeshaan golaha wada tashiga qaranka tan iyo doorashadii madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda waxaana la filayaa in dhawaan uu ku soo gabagaboobo qasriga madaxtooyada Soomaaliya isla markaana laga soo saaro bayaan rasmi ah oo lagu faahfaahinayo qodobadii ay madaxdu uga wada hadleen Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka filla Soomaaliya